wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba meel kastaad naga daawanaysaan iyo si kastaad noo daawanaysaanba kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aanu ku eegayno dhibaatada haweenka Soomaaliyeed ku haysata waddanka Uganda. taniyo xilligii ay meesha ka baxday dawladii dhexe uu hogaaminayay Allaha u naxariisay Generaal Maxamed Siyaad Barre waxa dalka Soomaaliya isu bedelay dagaalo dawlad la'aan iyo foodo shacabka Soomaaliyeedna waxa soo food saaray dhibaatooyin kala duwan iyagoona u kala qaxay wadamada dariska la dalka Soomaaliya halka qaarkoodna ay uga sii gudmeen wadamada caalamka si kastaba ha ahaatee intooda badani waxay ku hungoobeen hamigoodii ahaa inay helaan nolol dhaanta midii ay kaga soo carareen dalkooda hooyo waxa iyana jirta qaar ku nafwaayay saxaraha iyo badaha waaweyn ee u dhaxeeya qaaradda Afrika iyo Yurub iyagoo beegsanayay dalalka Yurub halka kuwa kalena ay ku jiraan xabsiyada adduunka waxa ka dhaca halkaas mararka qaarkood in dadka Soomaalida lagu xiro qaarkood loo celiyo waddanka Suuriya qaarkoodna la xiro oo galaan xabsi ku yaalo magaalada Antakya ee ka tirsan waddanka Turkiga haddaba daawadayaal sodcaal ugu kuurgalayay telefishinka caalamiga ee Kalsan TV qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan waddankan Uganda ayay waxaanu mid ugu booqanay hoyga ay kaga nool yihiin caasimadda Kampala waxayna nooga warbixiyeen dhibka ku haysta dalkan Uganda dhibaataysan baan ahay dadka Ingiriiska ku dhac jira waxay siiyaan walaalada Soomaalida meelaha ku arko waxay siiyaan midna waa ay qabaa oo waa ay caawiyaa danta ay u kaliftay inaan u tago asaga imisa sano ninkan ku qabaa 8 bilood waxa run ma darin maya marka halkeed ku nooshayo qolka gurigaaga aad ku nooshay waa halkan daawadayaal sidaad arkaysaan caasho waxay ku nooshahay gurigan oo waa gurigan dadkan meesha degan waa dad madow waa Ugandese marka caasho waxay u hoyataa gurigan caasho waxaan wax ka weydiinay markay isguursanayeen cidii isu guurisay familgeeda iyo ku daray qaab nooceeya bay maadaama uu nin ajnabi yahay oo Ugandese yahay oo aan xitaa diinta muslimka haysan qaabka isu guursadeen iyo bal markaan wax ka weydiinay caasho waxay noogu jawaabtay qof ugu daray malahan ninkan aniga danta baa u kaliftay qof ugu daray malahan ninkan waa nin ajnabi ah danta ay u kaliftay familgeygana meel ay ku kala maqan yihiin ma ogi aniga wax dhibaato oo kale xagga ka soo gaara ma jirto diintaada ka soo gaara ama wax lagugu aflagaadeeya ama wax dhibaato oo dil aad ku qabtaa waa jirtaa wali aflagaadeeya wali idaacayeedeeya laakiin aniga uma fiirsado dhinaca Ilaahay baa raacsan waa idilaa ninka waa idilaa wuxuu ileeyahay orod wax soo shaqeey wax keen anigana wax ma haysto masaakiina iska ahay hadaan wixii keenin waa la iburanaya jidkaas xanaaya nabarka yaa kugu dhuftay asaga marka ayaa ku dhaxtay maya Ilaahay dartiisa uu caafimaado nabarka muxuu kugu dhuftay dhagax markuu dhagaxa kugu dhufanay miyaad istisheen miyaad si sababta nooceen kugu dilay raashinka ma raashinkeen buu ku yiri misaala yiri raashinkeen asaga ay dhahay keen raashinkeen oo dhahay raashin ma hayaan la niyoona dhibaataysan iska dhaaf waa ay kala tuuro waan idilay luqadaad ku wada hadashaa madawadu gabar Soomaaliyeed ay Swahili iyo Ingiriis sida aad arkaysaan daawadayaal caasho waa gabadh iskala nool waddanka Uganda inkastoo ay noo sheegtay in nin qabo ay ninka la degan tahay laakiin maamadani waa maamooyinka waddankan Ugandese waana maama caawisa caasho waana gurigan ay degan tahay caasho maamada iskale habari mazuri Aisha alikuja hapa kama naomba usaidizi mimi kama mama niko na nyumba hii mimi napanga nina mtoto mimi nakaa na yeye kwa mzuri sio namna tunapata chakula kidogo kiasi hivi na kulala hivyo ile nyumba hii ya nani sio yangu mimi napangisha tu nipangisha tu alafu nikupatie Aisha mahali ya kulala ndio
nampatia basi ya kulala nyumba ya kulala hapo kama watu wakamuelezenje na maamadani waxay noo sheegtay inay caasho caawiso oo ay sariir siisay sidoo kalena ay qaar kale Soomaali oo haweenka Soomaaliyana ay mararka qaarkood caawiso waa maamada guriga leh ee caasho la nooshahay ninka caasho ay la nooshahay wuxuu degan yahay guriga la wada degan yahay maamadana ayay family yihiin saas ay caasho ku siisay mama santi sidoo kale daawadayaal gabadhana waa gabadh Soomaaliyeed oo Khadra Xirsi Maxamed oo ku nool wadanka Uganda oo kamid ah hablaha ku dhibaataysan wadanka Uganda Khadra ku soo dhawow Assalamu alaykum aan leeyahayna ma jirto waxaan la noolahay qabiilka beledka u dhashay hal wiil oo yar waxaan qabaa oo Arab ah waxaan ahaa qaxoontigii oo Yemen markuu burburka dhacay oo la tiiday madaxweynaha ayaan baladkan imaaday shan inaan ku noqdo refuuji dadka dhulfaayaan aan ka mid noqdo dhibaatooyin badan aan la kulmay guriga ijaarka waa iska dhiibi kari waayay alaabteedii lacag 300 kun la iga qaatay markaas ka bacdigeedna islaan halkan joogto Ugandaysa aan iska la degay iyada iska saacida wiilkaygana 2 sano jira qabiilkiisana waa Yemen waana yaafac waxaan ka codsanayaa haddaad diideen dadka muslimka ah inaad na garab qabataan waxaan ku nahay Soomaali 3 gabdhood waxaan dhaafnana ma laha balwad kasta waa iska isticmaalnaa duruuftana noo geysay inaan isticmaalno dadkan ka dhalanan dad xun waaye faa'iido ma laha inayna saacidaan waxaan insiinayna waxa ku cabaysan balwad jaad ama sigaar ma fahanti marka waakaas aniga maanta waxaan abaal u hayaa dawladda Uganda iyo shacbiga Uganda oo soo dhaweeyeen wiilkaygana iga jecel alxamdulillah wuxuu ilaahay na siiyay iska cunna marmarna waa iska qadna marmarna matoorkadeena iska dalbana waxa loo dhigo jira malaha laakiin hadii jiro dad Soomaali ama dad muslimiin inay garab qabtaan xagga hay'ad yani cuntada ha noqoto wax kasta ha noqoto inay na siiyaan ka jeclaan lahayn intii adduunka joogan dadkeena kulli yurubka jiraan waxa ay soo yeemaan waxa ay sistaan mid ma jirto ilmaheegana waa 3 yaa ku caawiya yaa sila degan tahay yaa islaantaas aan la deganahay oo magaceeda waxa la dhahaa ayadaana musaacida wax kaloo dhibo jira ma laha alxamdulillah waqtigan helana waa iska cunna waqtigan helana waa iska jira Soomaali badan magaaladan kama aqaano waa ku cusbahay saas darteeda gabadhan walaashayda garab taagan ayaa maanta noo imaaday aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkan oo maanta anaga garab qabanayaan oo saacidayaan mushkiligayna dad badan jiro oo magaalada ku dhibtoosan dad badan oo waxa jira xataa xaasas oo caruur leh oo waxba aan haysan xataa luqmada ceeshka aan karsan kareenin alxamdulillah ilaahay uun baa naga fiican iska noolnahay marka ilmaha yar ee aad dhashay waxaad noo sheegtay inuu Arab yahay yaa kugu caawiyay meel ninkii dhalay waagi ugu dambeysay asoo atoobiyo isboosan hooyadii soo xareysay ugu dambeysay magaciisana waxa la dhahaa Maxamed Axmed Taari wax war ma haysaayo reerkina wax xiriir ma leedihiin iyo ma reerkina muddo intii 3 bilood hadda aan dhibaatadan soo galay maan isla kulmay telefoonkeygana waa iga hooyay anuu jidka maraay madagoon aad nooshiin ma idin dilaan wax dhibaato ma idin ku sameeyaan maxay dhibaatada ugu weyn ka haysataa oo idin ku sameeyay maadaama aad nooshiin والله أنا قلت كل يبغى مصر يعني أنا بحاجراي وأنا جرب الدور لكن وكريستيان لكن أقول بقول سيان مركان جوزن حتى عنقي عنتظر سايسي يعني سيان وأوغنداس ساز ترتيب أنا بحاول تقريبا لوسو بيمجر أنا مركا خارج daawadayaal sidoo kale Naciimo Xasan Xaaji waa hablaha ku dhibaataysan wadankan Uganda waxay ka mid tahay dadka ku nool halkan aan nimi boqoshada ku nimi u soo boqday TV-ga caalamiga Kalsan TV Naciimo ka soo dhawow waa mahadsantahay walaal salaamu calaykum calaykum asalaam
وفي عنا هرتاني مقعي نم على ده أنا أحسن حاجة ماشي أنا بنول هاي مركب دكانة إسكال نول هاي وين عاويان وين ساعديان انتظر يشوف كي واحد استوى وبهنا وين سيان وحود وده يكران كوده مركب سومالي ما يشكو دبعتي سنة marka nacimay dadkan luuqad nooceed ku wada hadashaan sooxiliyan ku wada hadalnaa wax nacaawiyana ma jirto idna wax lama siiso Soomaalida nama caawiyaan waxna lama soo diro meeshana isaga noolnahay salkaaga hore halkaad ka timid Soomaaliyan ka imid marko meel dhahan ku dhashay ka soo qaxnay magaalada Sokoya anaga dib iyo rafaad baan kala kulanay marka waa kaas 9 sano wadankeena moogahay mar hore inuu dambeysay anoo yar marka meeshaan un baan iska joognaa marka Soomaalida community-ga wadanka ku nool miyana idin caawin miyana idin ogeyn waxna og ma jirto waxna caawin midna ma jirto dadkan sideed isku barateen sideed ku hesharina idin caawiyaan sidee yaa idin keenay gabar baan noo keentay saaxiibadeena hadda xarada ku maqan iyadaana bartay saasa markaas u joognaa ka gabadha saaxiibadeena idin bartay iyaduna ma noloshan ku noolad halkan ku nool waa badannahay gabdho badan aan nahay iyadaana noloshaan nagu la jirtaa nagu la nooshahay waxay ii sheegeen in dumarkan rag qabaan oo rag wadankan Uganda u dhashay ay caawiyaan oo qabaan adiga dadka waran miyay ku qabaan miyaad iskala nooshahay nolol nooceed ku nooshahay aniga wax min ah ma qabo kaliya yahay aniga waan iskala noolahay ma ahana nin xataa kaaniga shaqada ku leeyahay aniga ba nafteyda meel u laaman intaan geenayo waxa caruura ma leedahay waa leeyahay wax caruur ciyaalkaaga way joogaan gabdho cidday la noolyihiin cidayna halkay ku nool wadankay ku nool kambaale ku nool dantaana kala kaxaysay anay caruurta marka adiga ciyaalkina wax xidhan kaba dhaxeeyo oo isma aragtaan oo shaqo isku malahan mar haddaan caawin karin maxaan u sheegi karaa marka maabood baa haystaa maya waxaa haystaan gabar aan qaraabo fog aan haysto marka ciyaalka ay waa imse ciyaalka laba waay laba wiil haddana waxaan eegi doonaa guriga ay ku nooshahay naciim dadkan daawadayaal sidaad arkaysaana waxaanu soo galnay hoygii ay u hooyan jirtay naciimi ee ay ku noolayd ee ay dadka Ugandiiska ay ku caawiyeen hoygan halka aanu fadhina waa halka ay naciimi seexato una hooyato dadka caawiya iyo dadkan aad arkaysaan waa dadka naciimi caawiya ay iskala nooshahay walahi wax dhiba kulay anigu kuma qabo dad fiican waay dadkan hadda isbartaan marka dadkan waa iskala nooshahay ma waxaad ka noqotay iska qof Ugandiis aad la noqotay oo iskala ma aniga Soomaali baan ahay laakiin waa isbaranay dad waxaan iska nahay oo macaarif ma weydi dad Soomaali ah oo guri ku siiya ama ku caawiya ama aad iskala noolaatid waan waay maxaad u shaqaysan weeyay in dhalinyaro abaatay waad shaqaysan kartaa xanuun ma qabtid saad noo sheegtay wad caafimaad qabtaa maxaad u shaqaysan weeyday runta waa caafimaad qabaa laakiin meel aan ka shaqeeyo ma arkin waa shaqaysan lahay marka gurigeena sariir baad seexataa mise halkan aad ka seexataa halka seexataa meesha dhulkaan iska seexdo halka Ugandiiska dhulkiisa ka seexataa marmarna sariirtaan seexdaa marka waxa ma ku sameeyaan adiga ma ku dilaan ma ku mararka qaarkood maya wax aad gudub waxba ma sameeyaan waa iskala nooshahay iskala noolahay ugu dambeyntiina haweenkan Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalkan Uganda waxay gacan iyo taageero ka sugayaan walaalahooda Soomaaliyeed maalmaha barakaysan ee bisha Ramadaan iyagoo ka filaya inay uga miciinaan noloshan qalafsan ay kula jiraan dadkan aanay wadaagin dhiig diin dhaqan iyo waliba abtirsiin daawadayaal barnaamijkii aan ku eegaynay dhibaatada haweenka Soomaaliyeed ku haysata waddanka Uganda intaasaan ku soo gabagabeynaa intaan ku kulmayna barnaamijkan oo kale waxaan kaga tageynaa sida iyo amana Allah